aqrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed ayuu ahaa ajandaha kulanka mudanayaasha golaha shacabka ee maanta oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana xildhibaan Zakariya Xaaji Cabdi oo xubin ka ah guddiga beeraha waraabka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee golaha shacabka uu goluhu u faahfaahiyay qodobada wax ka beddelka lagu sameeyay iyo meelaha siiqa ahaan loo saxay hindis sharciyeedkan mudanayaasha golaha shacabka ayaa aad ugu kala aragti duwanaa qodobada qaar ee hindis sharciyeedkan ku jira waxaana qodobada aadka looga dooday ka mid ahaa dhismaha hay-adda adeegyada baaritaanka iyo sharciyeynta beeraha Soomaaliyeed iyo sidoo kale doorka wasaaradda ee hay-addan haddii hay-adda waaya la leeyahay sharcigan hay-adda laftirkeeda macda ujeedooyinka haddaa fiirsaan waxaa la yidhi waxaa qorteen waa lagu soo qoray qoraalkan dambe ku qorana xataa wax macna uu sameynaya aniga aan ii muuqan farqada koowaad waxaa loo qodobeeyay abuurka iyo noocyada dhirta xakamaynta kiimikooyinka beeraha badbaadinta dhirta sharcigan oo faafinta rasmiga lagu soo qoray inta la faafiyasaan loo soo qoray aniga ma aqaana baarlamaankan wajiga uu yeelan doono maalintii dhaweydna waa sheegay asaguna hadda waa sheegay afarta sharciba iyagoo afar buugaa lagu qaybiyey halkan baarlamaanka qaybiyey hadduusan akhrin ma annaga inta ugu tagna gurigiisa waa akhriyayna waa maya waa inuu soo akhriyaa soo maaha shuruucduna markay isku nooc yihiin laakiin waxa ay sagsimada ay ka hadlahayaan kala nooc yihiin hal hay-adna laga rabo inay shaqadaa fuliso waxaa loo fududeeyey in arrinta takoorka gaar loo soo qoro tan kiimikada gaar loo soo qoro laakiin tan muxuu ahaa abuurka gaar loo soo qoro laakiin kulligood hal hay-adaa maamulaysa isugu geynaysa hal mar afar hay-adood hal wasaarada oo isku wasaaradda beeraha ah looma samayn karo sharcigan wuxuu muhiim u yahay badbaadada dhirta hirgelinta tallaabooyinka xakamaynta oo wax walboo la xakameynayo sharcigan ayaa hadhow uu ka asalmayaa qaabeynta sharciyada karantiilka ah baaritaanka iyo caddeynta abuurka annaga xildhibaanada sharafta oo afar xeer ah loola qaybiyo afar xeer oo kala madax bannaan waaye waxa maanta aan u codeynayno oo guddigeena beeraha ayna weydiinayaan ma dhisitaankii xeerkii lagu dhisi lahaa hay-addan hay-adda adeegyada baaritaanka iyo sharciyeynta beeraha Soomaaliyeed miyaa saaris mase horta waxaan ka hadlaynaa waa kiimikadii iyo ilaalintii dhirta iyo ilaalintii deegaanka xildhibaanada golaha shacabka oo codgeliyay hindis sharciyeedkan ayaa waxaa codkaha ku ogolaatay 139 xildhibaan 3 xildhibaan ayaa diiday halka hal xildhibaan uu ka aamusay sida uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka oo kulanka shir gudoominayay 139 waxaa diiday 3 cod waxaa ka aamusay hal cod maasiin waxaan soo dhaweynaynaa guddiga beeraha xildhibaan aadan Ibraahim Daayow oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga beeraha waraabka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee golaha shacabka iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Saciid Xuseen Ciid ayaa xildhibaanada golaha uga mahadceliyay ansixinta hindis sharciyeedkan insha Allah taala waan xildhibaanada u mahadcelinayaa marka hore marka labaadna waxaan rabaa xildhibaanada inta ka hadleen dhammaantood waa fiican yihiin maxaa yeelay ninkaas fikirkiisa soo jeesiday sharcigan runtii aad iyo aad ugu mahadsantahay ansixintiisa baarlamaanku waajibkiisa dastuuriga aad ka gutay waa sharci aad iyo aad muhiim ugu ah horumarinta beeraha Soomaaliyeed dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo qaybiyay xubnaha adeega garsoorka xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa hindis sharciyeedka booliiska federaalka aqrinta labaad ee hindis sharciyeedka hay-adda dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliyeed aqrinta labaad ee hindis sharciyeedka ilaalinta xuquuqda maalgashiga iyo maalgashadaha iyo aqrinta labaad ee hindis sharciyeedka hay-adaha aan dowliga ahayn kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya maanta waxa uu ka koobnaa hal ajando oo kaliya waxaana uu ahaa aqrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed oo maanta xildhibaanadu ay aad uga doodeen
qodobada qaar ee hindis sharciyeedkan oo guddiga qaabilsan arrimahaasi ay wax badan ka soo bedeleen meelaha qaarna siiqatoosin ay ku soo sameeyeen ayay xildhibaanadu qaar ay aada u saluugsanaayeen wax ka beddelka qodobada qaar ee hindis sharciyeedkan lagu sameeyey qaarkood waxa ay qabeen in hindis sharciyeedkan maadaama 4 sharci isdul saaran uu yahay mid loo kala qaado xildhibaanadu ay mid u ansixiyaan laakiin xildhibaanada qaar oo sharcigan qaabka loo soo qoray aada u taageersanaa ayaa sheegay in hindis sharciyeedkan guddigii soo qoray iyo wasaaradda beerahuba aada ugu ammaanan yihiin qaabkay ugu soo shaqeeyeen xildhibaanada golaha shacabka qaarkood waxyaabaha ay saluugsanaayeen waxaa ka mid ahaa dhismaha hay-adda adeegyada baaritaanka iyo sharciyeynta beeraha Soomaaliyeed oo qodobada hay-addan ku jira qaarkood iyo qaabka loo sameynayaba xildhibaanada qaarkood ay u saluugsanaayeen waxaan xildhibaanada golaha shacabka ay aada ugu baaqeen intooda badan in maanta cod loo qaado hindis sharciyeedkan lana ansixiyo 139 xildhibaan ayaa haa ku ogolaatay 3 ayaa diiday halka hal xildhibaan uu ka aamusay Ibraahim Gudle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta golaha shacabka Muqdisho.